رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. can abi hurayrata radia allahu canhu qaal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك رواه مسلم. waxaa laga wariyey abu hurayrata alla raalliha ka ahaadee inuu yidhi wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama mid jeclaysiiya qiyaamka ramadaanta isagoon si go'an u amrayn asxaabta oo wuxuu dhihi jiray qofkii bisha ramadaan salaad u istaaga isagoo aaminsan kana ajartirsanaya oo alla darti keliya u samaynaya waa loo dhaafaa wixii dembi ah ee u soo hormaray. marka waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalama la oofsaday iyadoo arrintu sidaas tahay. sidaasayna arrintu ahayd khilaafadii abubakar iyo qaybtii cumar ah. waxaa wariyey xadiidka muslim. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.